halkaad warkaasina kala socotaan daawadayaal waa istuudiyaha Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London. daawadayaal qaybta ugu dambeysa ee warka waxaynu alaaba idinkugu soo gudbinaa waxyaabaha la yaab kale ee dunidan ku soo kordhay saacadihii ugu dambeeyay. haddaba wararka ka imanaya wadanka Vietnam ayaa waxay sheegayaan in qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka caawiya dumarka in ay dhalmada iska joojiyaan ay la yaabeen mucjiso ku dhacday haweeney isbitaal ku yaala waqooyi bari wadanka Vietnam ku umushay. haddaba haweeneydan ayaa la sheegay qisadeedu inay tahay 34 sano jir da'dii saddexaadna ku dhashay isbitaalka ku yaala waqooyiga bari ee wadanka Vietnam. dadka iyagu doonaya ama haweenka doonaya inaanay ilmo dhalin waxay inta badan isticmaalaan daawooyin kala duwan haddii ay tahay kaniiniyaal irbado. waxaa sidoo kale ku jira qalabka caruurta ka joojiya dumarka, qalab yar oo sida taada ama tiida oo kale u samaysan. qalabkan ayaa waxaa la geliyaa riximka ama ilmo galeenka hooyada, kadibna wuxuu la diriraa ugxanta marka ay soo gasho halkaasi ayuu halkeeda ku dilaa. waxaana ay dumarku sameeyaan inta ay uu ku jiro qalabkaas inaanay wax uura qaadaynin. haddaba dhaqaatiirta isbitaalka waqooyi bari ku yaala wadanka Vietnam ayaa si weyn ula yaabay mucjisada dhacday kadib markii haweeney la sheegay in ay uur ku qaaday sidaasi iyadoo uu ku jiro qalabka tiiga loo yaqaano. dhaqaatiirta qaar waxay aaminsanayeen in qalabkaasi haddii xitaa lagu sii daayo cunuga in uu dili doono, laakiin si kastoo ay tahay haweeneydii uurkeedii wuu dhammaaday. waxaa la gaaray xilligii dhalmada. qof walba oo ka tirsan isbitaalka wuxuu sugayay waxa ka dhici doona halkaasi cunuga caafimaadkiisu sida uu noqon doono. waxaa la arkay markii cunugii haweeneydii ay dhashay qalabkii loogu talagalay in ilmaha looga hortago in cunugii uu gacanta ku soo qaatay oo isla markaana si mucjisaa weliba isagoo u sita uu ka soo baxay hooyadii. haddaba dad badan ayaa mucjisadaasi la yaabay. warbaahinta ayaa isugu timid markii dhaqaatiirtu ay u yeereen iyagoo u sheegay in awood ka weyn ay timid. cunugii ay filayeen inuu u dhinto qalabkaas tiiga ah oo uu ku dilo ilmo galeenka inuuba soo baxay isagoo qalabkii gacanta ku haysta. فقد وضعت اللولب بالمانع منذ 2 ومع ذلك حدث الحمل، لكن المفاجأة هي ثورة الصبي عند الولادة. فبعد أن خرج إلى الحياة وكأنه كان بيده اللولب وكأنه لعبته المفضلة، كأنه العضاضة. التقطت الطبيبة هذه الصورة له لتجوب مواقع التواصل. واتهي daawadayaal qaybtii ugu dambeysay ee warka oo aan idinkaga soo gudbinayay istuudiyaha ku leenahay magaalada London. waa naga inta anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinayay. inta aan mar kale kulmayno sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.